wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan oo uu heliyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shirkadda hirgelin doonta dhismaha deyr lagu kordhin doono barxadda hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay dhismahaasi. wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda Soomaaliland halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa saaka toddobadii bishii 2023 baynu joognaa bannaanka hore ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta dadka reer Hargeysa waxay u yaqaaneen idaacadda buurtii idaacadda weeyaan waxaynu halkan dhagax dhigaynaa mashruuc dhismo ah oo lagu ballaarinayo deyrka ku wareegsan wasaaradda oo qiyaastii 50 mitir dhowr iyo 50 mitir noqonaya oo ujeeddaduna ay tahay dhinaca waa ogtihiin wasaaraddu meel suuqana way ku taallaan waana hanti badan oo ummaddu leedahay ayaa taalla marka dhinaca security-ga iyo dhinaca amniga iyo dhinaca bilicda iyo space-ka barxadda oo la ballaarinayo oo wasaaradda iyo xarunta wasaaradda iyo gidaarku waxay isu jiraan 6 mitir imika iyo badh marka imika waxay ka soo durkaysaa ilaa 50 mitir marka taas waa talabaadna cafeteria halkan meel cuntada fudud iyo sharaabada iyo waxa ay ka cabaan shaqaalaha wasaaradda ee madaxda iyo shaqaaluhuba ayaan halkan laga dhisi doonaa gudaha marka cafeteria-dana waxaan ugu talagalnay wariyeyaasha iyo culimada iyo qolada kale ee farsamada iyo fanaaniinta iyo markay yar qaboobaan inay isku kululeeyaan bunka markay yar xiiqaan inay caana ka cabaan oo dabeedna ay shaqada si laban haddii alla ka dhigo marka insha Allah haddana waynu dhagax dhigaynaa shirkaddii iyo madaxdii kaleba waa joogaan waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule iyo Cabdi Cumar Jibriil telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.